ruux aqoontiisa baro lagama maarmin ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومر لبعض عشرتني أونلاين كها دكسي كسرة لحيلة تكتم فصل ككوبات. وحين مالنتي هرسوا دجني عشر كاني ها فاكتورايزيشن. وحين دجني قيب كمية فاكتورايزيشن. أو هاي symbol factorization. waxaynu dhiganaynaa maanta qaybtii labaad ee factorization oo ah factorization by grouping. Factorization by grouping waxa weeyaan waa inaynu tibxihii aljabrada factorize garaynaa inagoo adeegsanayna grouping. Group waxaynu u naqaanaa waa wixii laba ka badan baynu naqaanaa laba iyo wixii ka badan. Factorization by grouping haddaba waxa weeyaan waa afar tibxood oo afartuba aan lahayn highest common factor ay wadaagaan. Afar tibxood oo aan lahayn highest common factor ay wadaagaan. maadaama aan lahayn highest common factor ay wadaagaan waa in grouping laga dhigaa marka. haddaba sidee baa looga dhigayaa grouping? waxa looga dhigayaa laba tibxood oo kasta oo leh highest common factor dhinac baa la isku soo marinaya. way tusaalayaasheena haddaba laba kamid ah ayaynu soo qaadanaynaa oo factorization by grouping. way tusaalaheena koowaad waxa weeyaan 3x square plus 6x plus 4x plus 8. eega afartan tibxood ma laha highest common factor ay wadaagaan oo aynu dhammaantood u qaybin karno. sidaa daraaddeed saynu u factorize garayno waxaynu samaynaynaa laba-labaynu isugu xidhaynaa grouping laba-laba. way tusaalaheena koowaad haddaba tusaalaheena koowaad waxa weeyaan waa 3x square plus 6x plus 4x plus 8. 3x square plus 6x plus 4x plus 8. way labadaa horeynu eegaynaa bal inay yeelan karayaan highest common factor. way 3 iyo 6 waa la helayaa maadaamay laba egas yihiinna labada egasna waa la helayaa. way labadaa hore waxaynu ka dhigaynaa group 3x square plus 6x group. way calaamadda halkaa taalla baynu soo qaadanaynaa plus. way labadan 4 iyo 8 iyagana way leeyihiin highest common factor group baa laga dhigayaa. way labadan aynu ka dhignay groupka gooni baynu u factorize garaynaynaa. labadan aynu ka dhignay groupkana gooni baynu u factorize garaynaynaa. way 3 iyo 6 isirweynaha ugu weyn ee labadoodaba qaybiyaa waa 3. way shalay maalintii dhaweyd baynu soo sheegnay x square iyo x ka powerka yar leh ayaa noqonaya highest common factor waa x. way waxaynu qoranaynaa bracket. way 3 haddaynu 3 u qaybino waa 1 1kii dhigan mayno. x baynu u qaybinaynaa x square waa x. way plus 3 baynu u qaybinaynaa 6 waa 2. x baynu u qaybinaynaa x waa 1 maadaamay tira taalo halkii qoran maaya labadii x way isla baxayaan. way calaamadda halkan ii taalay baan soo qaadanaya ee balaaska ahayd. way 4x iyo 8 waa labadaa tibxood. 4 iyo 8 isirweynahay wadaageen in labadoodaba qaybin karaya waa 4. way bracketkii baan furanaya 4 baan 4 u qaybinayaa waa 1 qoran maayo. 4 baan u qaybinayaa x ma qaybiso x tiiman dhiganaya marka halkii waan isaga tagayaa. waayo waxa yaala meeshii xaraf yaala
way plus 4 qaybiyo 8 waa 2 way halka ay gaado labada ku jira bracketka x plus 2 haran kalena waa x plus 2 hadday labadaasi isku mid noqdaan calaamadaha iyo xarfuhu hadday iyo tibxuhu hadday isku mid noqdaan jawaabtii waynu gaarnay weeyaan marka jawaabtii waynu gaarnay way marka maxaynu sameeynaa 3x ka halka yaala iyo 4ka group baynu ka dhigaynaa waynu isku xidhinaa 3x plus 4 way labadan isku midka x plus 2 iyo x plus 2 na mid baynu ka soo qaadanaynaa x plus 2 way labada imika 3x plus 4 iyo x plus 2 haddaynu isku dhufano waxayna siinaysaa expression keeni hore tibaaxeeni hore jawaabteenu taasi waa inta way su'aasha labaad daba fiirsada oo tan oo kale ah way su'aasheena labaad tii hore waxay ahaayeen tibxo number iyo xarf isugu jira laakiin tusaalaheena labaad waa xarf kaliya way ax plus ay ax plus ay plus bx plus bx plus by way sidii aynu hore u soo sheegnay afartan tibxood ma laha highest common factor ay wadaagaan sidaa daraadeed maxaa la sameeyaa group baa laga dhigayaa laba kasto isa soo xiga group baa laga dhigayaa way ax iyo ay waa grouping way calaamada halkan taaloon baa halkan la dhiganaya haday plus tahay iyo haday minus plus way bx iyo by na group baa laga dhigayaa way labadan tibxoodi labadoodaba waxa ku jira a iyo a marka a baa ka factorize garoobaysa marka macnaheedu a baa ka factorize garoobaysa way a hadii a loo qaybiyo way isla baxayaan x kaliya inoo soo horeysa meesha way plus a iyo a way isla baxayaan way kaliya inoo soo horeysa way plus b baa ku jirta halkan b baa ka factorize garoobaysa marka b hadii b loo qaybiyo waa halo qoramayno way isla baxayaan halkan x baa ku soo hodhay halkan waa plus b na b qaybiya way isla baxayaan ama waa hal halkan y baa ku soo hodhaysa way sidii tii hore x plus y baa halkan iyo taala halkan x plus y jawaabtii waynu gaarnay hadii labadaasi tibxiina isku mid noqdaan calaamadihiina isku mid noqdaan labadan a plus b waynu isku xidhaynaa group baa laga dhigayaa a plus b way x plus y iyo x plus y na iyagana mid baa laga soo qaadanaya jawaabteenina taasina waa inta way xabad exercise oo aad ka soo shaqaysaan waayahay waa factorize waa tan oo kale marka iyadana way su'aasha waa xabad su'aal oo kaliya ayaynu odhanaynaa ayaynu ka soo shaqaynaynaa waa 2x plus 8y minus 3bx minus 2 alif by su'aasha isku soo daya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad mahadsantihiin aqoontiisa baro lagama maarmi ha mogaanin taariikhda